Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan isweydiin karnaa biri maxaynu filaynaa, qof ahaan, qoys ahaan, iyo ummad ahaanba, iyo biridan dhow ee adduunka ah. Ummad ahaan dadku wuu tiro badanayaa. Hadda waxaa laga yaabaa ummadda Soomaalida birth rate-keedu wuxuu ku socdo 10 sano inay laabmi doonaan haddaysan ka badan. Su-aasha isweydiinta ah waxay tahay 10 sano kadib mustaqbalkeena xaguu joogayaa? Hadday tahay majaalka waxbarasho oo maanta dunida cilmigu huwa silaaxu wal iqtisaad. Cilmiga dunida hadda asigaa hub ah, asigaan dhaqaale ah. Xageenu aqoonta ka gaari doonaa? Dhaqaaleena xaguu gaari doonaa? Iqtisaadkuna waa casamul xayaa, waa halbowlaha noloshan cusub. Xagee gaari doontaa caafimaadkeenu? Xagee gaari doontaa dadka iimaankiisa, dhaqankiisa iyo usluubtiisa? Mise mustaqbalka waan iska sugnaa oon eegnaa sida u dhacayo? Wanandadir majhuur, waxaanan garanayn miyaanu sugnaa? Mise qof ahaan iyo qoys ahaan iyo qaran ahaanba qorsho miyaanu leenahay? Ummadeenu waxaa caan ah sanadkii waxaan aruurinaa dadkii daadka qaaday, sanadka kale haddana waxaa la aruuriyaa dadkii cudurrada ku dhacay oo la baaba'ay, haddana sanadka kale waxaan aruurinaa dadkii abaarta ku habsatay. Ilaa iyo weligeen ma sidaasaan kusii jirnaa? Waa saxiix, nolosha waa imtixaan, laakiin wax qudaa ama takhtiida ma leenahay aynu kaga gudubno aasibaadkan taagan. Ugu horeyn, ayuhal axibba, waxaan isku waafaqsannahay inaadan sugin qadarka iyo wax kugu soo socda, inay qasab kugu tahay inaad samayso asbaabta sharciga aad awooddo. Masaajidka Nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa nin yimid, dabadeedna wuxuu ku yiri Ilaahay rasuulkiisiiyo ursul naaqati wa atawakkal. Neefkii geelka ma sii daaya oo Ilaahay ma u tala saartaa? Nebigu wuxuu ku yiri aqilha wa tawakkal. Neefkaaga inaad dabarto Ilaahay u tawakkal saaro. Xadiiskii Imaamu Nasaa'i iyo Tirmidhi, Sheekh Albani saxiix la khayri buu tilmaamayaa. Siirada Nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaynu ka arkaynaa, waana kii uu Nebigu noo tilmaamay calayhi salaatu wassalaam, qofka muuminka in god 2 jeer aan laga qaninin. Asmaahday shalay ku soo martay biri inaad ugu fikirto sidaad ugu tilaabi lahayd oo ayna biri kugu soo noqon. Waa sax, ummadda lama niyajabiyo oo lama quus geliyo, oo Nebiga calayhi salaatu wassalaam waqtiyada ugu adkeed asxaabta oo bishaaraadka ugu badan uu sheegi jiray. Laakiin camal baa loo baahan yahay si aanu mustaqbalka u waajahno. إن الله لا يؤخر ما بقوم حتى يؤخروا ما بأنفسهم. markastoo aan rabno inaan wax qabno oo muhiimadiisana ay weynaato, qodadka loo degayo iyo sida loo fakarayo waa inay weynaadaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qolo ku ceebeeyey oo ku eedeeyey inaanay diyaargarow u gelin wixii laga rabay. walow araaduu khuruuja la acaddu lahu cuddaa baa Ilaahay subxaanahu wa tacaala yiri. dad munaafiqiin buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hadlay. Wuxuu yiri hadday dooni lahaayeen inay dagaal galaan oo way isdiyaarin lahaayeen oo dagaalkii diyaar u noqon lahayn goobjoog. Idan Ilaahay wuxuu noo tilmaamayaa ummaddii rabto inay wax bedesho inay diyaargarowdo, haddii kale inay ceebeysan tahay. sidaa awgeed buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka noogu tilmaamayaa وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الدياري وحي آدودان، يعني جهادك ديار سدا وحا آدودان نوع كستوى النقطة. إذن كورد أنيا أو عبسي جنينيا أو آن إذن كسو ديرنين كوا إذن عدوغا ديار قروغان علماء وحي يرادان وحي كان سنايان كو إناد أغادو تمرتاد انت أي تاي. 2 cadowgaaga inaad ogaato itaalkiisa inta uu leegyahay, inaad garan karto cadowgaaga halka uu u socdo iyo awoodiisa waxa ku soo biiri kara.
si aad ugu sii gaashaamato. Waxaad diyaarinayso waa inuu noqdaa lirradci, wax dhiirin gelinaya in lagugu soo degdegin. Sidaa awgeed ayuhal axibba, aayadda waxay dhahdaa, waxaa la yiraahdaa waxay tilmaamaysaa alquda caskariya walhadaf istiraatiijiya liljihaad. Marka waxaan doonaynaa inaan soo koobno waqtigan u yar awgeed. Qur-aanka kitaabka qisas badan baa ku soo arooray oo umamkii hore ah iyo nebiyadii iyo ambiyadii hore iyo boqoradii hore, gaal iyo muslimba. waxaasoo taariikha waxa noogu sheegaya waa inaan wax ku qaadano oon wax ku dhisano. qisaska qur-aanka min axsani qisas ah waxaa ka mid ah qisadii nebi yuusuf calayhi salaam. qisada nebi yuusuf waa qiso aad u cajiib ah. haddii la eego waxay ka waramaysaa qiso xigam badan ku soo aroortay, laakiin anaga qisadoo dhan uma socono. waxaanu tilmaamaynaa qayb keliya oo tilmaamaysa tafkiid rashiid ah iyo xusnu takhtiid iyo salaamatu idaara. qayb tilmaamaysa in si fiican loo fikiro, si fiican loo qorsheeyo, baleen fiican oo la dego iyo maamul wanaagsan in lagu wado. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa inay nebi yuusuf u imaadeen qolo gaalo ah. waxaa la yidhi, yuusufow waxaad nooga warantaa, nood fatwootaa, noo fasirtaa riyo ku saabsan boqorkii riyooday oo ah 7 sac oo naxnaxsan oo cunayo 7 sac oo weyd ah iyo 7 saabuula oo cagaaran iyo 7 sabuula oo engegan. ka waran baa la yidhi. nebi yuusuf xabsigu ku jiraa, ayagoona xabsi ugu jira dulmi ay dulmiyeen. laakiin ina allaha yuxibu almuxsiniin ma dhihin idinkaa i dulmiyee ordoy dhaafa. muusan dhihin ha u sheegin adoo og, ha u sheegin dadku waa gaalee, hama dhaane ibir ha ku noqdaane. laakiin wuxuu go'aansaday dadkaas gaal iyo muslimka ee masarkaas degan in uu badbaadin karo. riyada uma fasirin oo keliya, waxay culimmadu yidhaahdaan waxaa ku filneed oo keliya 7 sano abaara iyo 7 sano barwaaqa ayaa idin soo maraya. laakiin sidaa ma yeelin baa la tilmaamayaa, ee wuxuu u tilmaamay qundadii lagaga bixi lahaa mushkiladaas. laakiin riyada waxay tilmaamaysaa in 7 sano barwaaqaha ee ka dambeyso 7 sano oo abaar ah. laakiin nebi yuusuf nimankan wuxuu ugu tilmaamay oo dheeraada sidii wax loo qaabeyn lahaa. wuxuu u sheegay 7 sanood wax beera buu leeyahay, yacnii 7 sano si xiriir ah u beera oo wax soo saarkiina meesha u saraysa gaaro buu tilmaamayaa. al aslu fi shariica oo ilaahay wuxuuna faray inaan dhulkan camirno. waansha'akum fi lardi istacmarakum fiiha. ilaahay dhulka ayuu idinka abuuray, waxaan igala rabaa inaad dhulka camirtaan. marka waxa koowaad oo u tilmaamay waa inuu intijaadka uu kor noqdo. 2 in la keediyo wixii soo go'a, waxayna tilmaamaysaa waxaas la beerayo inuu noqdo xubuub. midda saddexaad inay cunaan wax ayaga ku filan ee israafka joojiyaan. israafkana wax kastaba sharciga kuman qaran. marka intaas ayaan jeclaystay inaan idin soo gudbiyo. asalaamu calaykum.